ninkayga ma ahan nin rag oo caadi ah wuxuu iga dalbaday in aan la seexdo saaxiibkiisa sidaan uu ceeb qariyo hadda ninkayga waxa isqabnaa muddo 2 bilood ah habeenka koo arooskeena oo ii imaaday ninkayga wax dhan wuu iga qaadi waayay hadda ani wixii waxaan ahay gabar bikra ah ninkayga wuxuu rabaa in aan la seexdo saaxiibkiisa sidaa uu ceeb qarino oo caruur u dhalno waxaan ahay gabar yar oo arday ah waxaan joogaa hooyaday iyo aabahay waxba ma haysanin waxa ka soo jeedi famil wax yar oo wax ma haysan oo easy ah marka hooyaday iyo aabahay la noolaay aabahay maalmaha ka mid nin saaxiibkiis ah wiilkiisa Mareykanka jiray markuu wuxuu dhahay saaxiib wiilkayga gabadhaada ku darsanaa aabahay markuu maqlay daruuftana heese iyo lacagta markuu arkay wuxuu dhahay gabadheeda ninkaas ku daraa sidaas ahliyeed aabahay wuu yeelay wuxuu dhahay gabadheeda ninkaas ku guurina waxaan ku dhahay waxaan fiiriyay familkeeda baayada heesato inay wax dhan haysanin aan fiiriyay waa fikiraysaa u fikiray ardaynimadeeda gabarnimadeeda yaraanimadeeda dhan waa ka soo baxay waxaan u soo jeestay inaan aqal galo abal waxaan rabay horumar inaan gaaro gabar waxaan rabay inaan noqdo wax barato heer sar gaarto laakiin way ii dhici weysiyo familkeeda dhibaato ku jireen saas darteeda guurka waa ogolaaday ninka ii guursare wuxuu ka imaaday Mareykanka wuu imaaday arooskeen iyo waxaan dhan aan dhigay familkeeda wuxuu siiyay $5,000 ah arooskii wixii dhan marka la dhigay gurigeena habeenkii aagnay habeenka gurigeena aadayna ninkayga wax dhan wuu iga tar waayay markaan arkay ninkayga wax dhan inuu iga taraynin waxa ku dhahay sidaan maxay tahay waan weydiiyay sidaan maxay tahay oo ku dhahay ninkayga wuxuu ii dhahay ha isheegin waxa arta ku sameeynaya markaas anigu waxa dhahay waxaan rabaa famil oo ka hor sare inaan noqdo hooyo inaan noqdo aan rabaa famil qurux badan inaan sameysto ninkayga wuxuu ii dhahay lacag ku siinaa waxa doonta ku siinaya ninkayga wuxuu ii siiyay $10,000 ah $10,000 waa ka qaatay waxa rabaa ku soo gatay waa ku soo adeeg shopping waxa u baahanaa inaan ku soo gatay marka ku soo gatay hadana waa fikiray muddo waan ko isqabno muddo 2 bilood oo kale waa fikiray markaas ku dhahay sida macquul ma naqanayso familkaada wax kasta u sheegay familkeeda ninkayga markaas wuxuu dhahay saaxiibkayga aa jooga oo Mareykanka iskala imaanay saaxiibkayga ku keena sidaas adi ilmo waa ku dhalaysaa qofna ha u sheegin ninkayga sidaas oo ii dhahay ninkaygi markuu ku iguursanay wuu isoo qiyaamay hadda wuxuu rabaa ninkayga wuxuu dhahay saaxiibkayga ku seexanayo caruurta ka dhalayo ani marka hadalkaas waa iga suurtala asan tahayo ma rabi ilmo oo xaraan ah oo xalaal ahaynin midda kale dambi waa naag nin qabo inay ninka la seexato taas waa dambi si walba ahaataba ani ninkayga waxa ku dhahay ma rabi waxyaalahaas camal inaan sameeyo ninkayga wuxuu dhahay wax alla waxa rabtid aan ku sameeynaa wax mashiina ku keenay wax kasta ku sameynayaan ninkayga waxa dhahay taas suurtagal ma ahan wax kasta waa inaa familka loo sheego sidaas noo fiican ninkayga wuxuu dhahay waa ku oofinaya wax dhan ha sheegin sida ninkan saaxiibkay ha kula seexdo labadiina isla jooga ha kula seexdo caruurta markaa dhashiin markaas waxa lahayaa wiilkaana dhan caruurta oo adigu qabo hadaa baxa Mareykanka aad wax kasta ku sameeyna oo ku dhoofina Mareykanka ku keena adii caruurtaada wiilkan ilmihiisa ani marka koo waa ogolaaday haddana waxa isii galay markoo idhaa wax kasta ku sameeyna hadaf weyn ay isii galay maadaama wali ciiday duruufaysan yihiin waxa rabay duruufta ciiday inaa wax kasta u sameeyo wax walba oo nolosheeda kamid ah xataa waan ogolaaday waxaan ku dhahay waayahay muddo isbuuc 2 muddo amal markay ka dambeysay waxaan fikiray waxaan dhahay walaalow hadalkan wax ma naqanaye hadalka noo keen markaas wuxuu dhahay hadalka waa sida isku ogeyn wax alla waxa maanta doontid iga dalbo familkaada guri alla guriga u baahan tahay aku ijaara aku dejinaya oo dhahay markaas waxaan dhahaani suurtagal ma naqanaysa hadalkan ee ka fikir nin aan xaraan ah lama seexanayo sidii ahaatabo ilaa wuxuu dhahay hadaa waxaas aad sameeysay wax ku dhacda isku keentay waan fikiray waxaan isku dayay inaan ka baxsado hadda in hadaa ka baxsan aan fikiray familkay waxaan arkay duruufta ku jiraan ee dhibaatada ku jiraan sidaas darteed guriyay aan jooga waa ku dhaqdo guriyay sidaas u jooga haddartan waxa la yaabanahay waxa aan sameeynayo ma familkeeda u sheega mis hadalkaan yeela
ninka oo ninkayga rabo inuu ila seexdo maalin walba uu imaana afkoo ila soo galgalaa sidii dumaashi ahaan mii ixtiraamayo sidii caadi laba qof caadi saaxiib ay malato markas iyo oo ila dhaqmaya markaa weydiiyay ninkayga ninkan saano uu sameeyna markaa dhahan wuxuu dhahayaa caadi waayo waxaas waa ninka aqalgal rabtidoo la see xarabtid waaye markaan dhaho waxaas ma suurtagaleyso ama wiilka hadaa u waco aa dhaho walaalo sidaan macquul ma naqanayso adii saaxiibkaas sidaan wax ka bedel markaa dhaho asi xataa wuu isxumeynaya wax alla waxaa u sheego ninkayga u sheegaa ninkayga maalin maalmaha ka mid ah hadalka markaa u baxay gooni ninkan kale uu sheegay ninkay maalin maalmaha ka mid ah gacan uu ii qaaday suxunuu ii dilay maanta suxun markuu ii dilay tusaale lagu soo galo ay dhahay cawada waa inaa ninkan isku diyaarisaa haddaa isku diyaari weyse waxa kuu dhaco adaa isku keentay ninkay wuxuu ii geliyay xaalad xun wuu ii qaaway wax kastoo igu sameeyey jirkay wax walbuu ku sameeyey dhaawacuu ii geystay wuxuu ii reebtay ninkayga male kaas ma la dhihi karo nin waxaa la dhihi doonaa nin bini'aadan oo shaydaan hal mar xataa iima naxariisan markastuu ii dili jiray wax walbuu igu samayn jiray sidii ahaataba haddartaan wuxuu iga rabaa ninka saaxiibkiis in aan la seexdo